بسم الله الرحمن الرحيم وأمرك هلا معد إسكاله الله سبحانه وتعالى سبحانه محمد نبتقلين نحريس كركي سايله أنت أسكدي والدي ولا السود وهذا نجنا قدام سلام كسر جودي كشي لاتا أنا تنلسك سلام تن وقف قيمها بدن وقولوا مهم سن وقفكي صدن أجر كهلا يا صدن البريكس جديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام كدب مقعي وأبو بكر أحمد عبدي كان مدها أقول تورتين فرسة وأنا نصيب ويا شيء إنه هلان دقد وحبر شيء أقول تمدي نصيب ويا شيء أريا بدن ومجي ميزان له حال كان إن كير هذا وحن هاي أرضي وجوري وديوان تاريخ المدي قلا صوبته وحن نقضي أرضي وجوري كقل مدرسة دكسي سره ولي بكو باس امتحان كسكولك امتحان الدولة ده aad ogtihiin inay ku dhaceen in ka badan 5,000 oo arday guusheeda kadib aniga hooyaday waxaan la xiriirnay maamulka Madday waxaan u sheegay hamigayga inuu yahay inaan jaamacad noqdo waxaan ka codsaday inay ii raadiyaan deeq waxbarasho oo iga bixiyaan qarashka jaamacadda waxayna nagu dhaheen fadlan naga jawaab suug waxaan ka badnayn 48 saac ayaa waxaan ka helay jawaab anigii hooyaday nafar xad gelisa taas inay ka soo helay jaamacadda Muqdisho leeguna yiri intaan kuliyadood mid ajaashay aad xiiseynayso ka doon waxaan doortay midii aan rabay waxaan u sheegay inta kuliyadan ka dhameenayo in qarashka jaamacadda Madday bixinayso maalintaas anigii hooyaday ururka Madday aad iyo aad ay ugu duceeyeen sababtoo ah waxay na soo gacan qabteen xilli mustaqbalkayga mugdi iyo midmadow oo ku jiray waxay iga saareen dugsi dhexe iga soo bixin dugsiga dhexe sare haddana waxay ila garab taagan yihiin inaan noqdo insha Allah jaamici waxa istara dadkii dalkii wax tara waxaan jecelaystay in aan hortiina ka balan qaado kuna qori doono arjifka Madday taariikhdan aan ka soo bixi doono kana soo dhalaalin doono waajibkayga waxbarasho dhameysan doono haddaan noolahay kuliyadan si aan hore iyo tusaale ugu noqdo walaalaha agoonta Madday waxaan sidoo kale balan qaadayaa sida wax lagu soo qabtay si ka badan in aan u qaban doono hadduu Ilaahay caafimaad iyo cimri dheeri ina siiyo insha Allah waxaan diiradda saarayaa kafaala qaadista agoonta diiwaanka Madday ku jirta kafaala sugayaal markii ugu horeysay oo gacanteena wax soo gala insha Allah rabbiyo taasi mid tusi kartaa maanta aad iyo aad ayaan u farxaa